السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومركلة يا منصر يا فيديوهاشيني فضلا كسو دواب channel كينا هداد كعصب تهي سبسكرايب صار لو ذاك أصحاب تادا فرين تادا هوسي نوغو ريب وحان جعل هذا الكيجين أنكو بالله بشي كير أو كفتن هذا كهر waxaa jiray oday muqayil wuxuu ahaa dadka aadka u qayila heer wuxuu gaaray oo gurigiisa uu ka soo dhaxo habeen dhan marka wuxuu imaan jiray habeen dhaaf gurigiisa habeenada kamid ah sida caadadu ahayd isagoo gurigiisa ka soo dhaxay oo habeenkii kale oo socdo oo uu dhafar yahay waa markuu guriga soo galay waxa loo sheegay xaaskiisa inay fool tahay xaaskii uu soo qaaday isbitaal ayuu geeyay gabadhii waxa lagu xareeyay qolkii dhalitaanka abaar markii qolkii ay ku jirtay ba wali ma aysan dhalin wuu yaabay ninka marka asagana habeenkii oo dhan uu soo jeeday wuu sugay 12 habeenimo lagu gaaray gabadhi wali ma laga soo saarin qolkii waxa jira dad kale oo dhalinyaro ahaa oo xaasaskoodii keensaday oo ilaahay soo kala fududeeyay iyaga ciyaalkoodii ka xeestay gurigooda oo cishta isagii wali gabadhi meesha ku jirta qolkii abaar markuu joogay oo yaaban yahay ba markii la gaaray salaada subax ba waxa loo keenay wiil yar waxa uu keentay kalkaalisadii kuna dhahday hambalyo wiilkan ayaa lagu dhalay odaygii asagoo xanaaqsan ayuu wiilka inta soo qabtay wuxuu ku dhahay waryaa nacas yahow adigoo adduunka ku cusub ayaad saacadan socotaaye markaad weynaato imsa saacayaad soo hoyan doontaa maanta waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo mowduuc aad u quseeya nolosheena mowduuc laf dhabar u ah guul walbo aynu gaareyno mowduuc walaalayaal furo u noqon kara albaab walbo inaga xiran bal magaciisa mowduucaas walaalayaal waxa lagu maamuusay albaab kamid ah albaabada jannada mowduucaas waxa weeyaan sabarka dhamaanteen waxaynu leenahay waxyaabo aan Allah subhanahu wa ta'ala ka sugayno inuu inoo hirgeliyo inuu riyooyinkeena inoo rumeeyo inuu caruur ina siiyo inuu inoo sahlo qofkii nolosheena ku haboona in waxbarashada inoo fududeeyo in businesska uu inoo fududeeyo in ganacsi ina siiyo laakiin markii aan in muddo aan Allah subhanahu wa ta'ala barino markii aan in muddo aan wax weydiisano laakiin wax ay inoo hagaagi waayaan ayaa waxa inagu dhashay walbahaar murugo waxaan isweydiinaa aniga maxay arinteeda u dhici laadahay maxaan aniga caruur u dhali laasanahay maxaan u heli laasanahay qofkii nolosheeda ku haboona muxuu ganacsigeyga wax isaga bedeli laasan yahay dulqaadka ayaa inagu yaraada hadaba mid ogow Allah subhanahu wa ta'ala inoo ma waayin wax walbo inuu weydiisanayno in riyooyinkeena inoo rumeeyo in caruur ina siiyo in uu ina siiyo qofkii nolosheena ku haboona laakiin Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu nala damacsan yahay inuu ina siiyo waxa isaga aynu weydiisanay wax ka badan 10 jeer wax ka badan 100 jeer wax ka badan 1000 jeer sidaas daraadeed nalooga baahan yahay inaynu dulqaad ka badino diyaar garow fara badan la imaano si markii nimcadana la siiyo aysan u noqonin mid inaga nafitnaysa ay u noqoto mid aynu xasilino dadka kaleetana uga faa'iideeno nabi daawud alayhi salaam wuxuu ahaa nabi Allah subhanahu wa ta'ala uu ku aaminay diintiisa waxa lagu soo dejiyay kitaabka zabuur nabi daawud alayhi salaam wuxuu ahaa geesi wuxuu dilay gaalkii weynaa ee loo yaqaanay Jaalut ama Goliath nabi daawud alayhi salaam wuxuu ahaa qof hantiyay qulubtii reer bani Israa'iil aad bay u jeclaayeen wuxuu nabi daawud soo noqday xaakim wuxuu soo noqday boqor laakiin inta uusan heerkaas oo dhan uusan gaarin inta uu sidaas u noqon waxa soo dhan kumuusan dhalan nabi daawud alayhi salaam wuxuu ahaa nin dadka agtooda aanan macna badan ugu fadhinin ra'yi kumuusan dhaxlahayn dadku maysan u arki jirin in la ixtiraamaan maysan ahayn qof ay jecel yihiin wuxuu ahaa ari raac nabi daawud alayhi salaam markiisii hore isagoo ariga iska raaca oo aabihii ariga u raaca baa waxa dagaal soo qaaday gaaladii muslimiintana diyaar garow fara badan bay galeen markaas joogtay nabi daawud aabihii baa wuxuu soo kaxeeyay 3 wiil oo dhalay oo kamid ah nabi daawud marka muslimiintu waxay u kala baxeen nin la baxa naftiisa nin la baxa maalkiisa iyo nin meesha caruurtiisa keena oo u sheegay in ilaahay dartii ay u dagaalamaan nabi daawud aabihiis baa marka awood badan muusan lahayn hanti badan muusan haysanin sheebna wuu ahaa qof waayeelna wuu ahaa wuxuu soo kaxeeyay 3 wiil oo dhalay nabi daawud kamid ahaa wuxuu u imaaday qaa'idkii muslimiinta markaas joogay wuxuu ku dhahay
labadan wiil ha ii dagaalamaan oo ha u dagaalamaan ilaahay dartiis. wiilkan wuxuu ka wadaa nabi daa'uud ha u qabto ciidanka waxay u baahan yihiin sida xaabadoo kale ha u soo aruuriyo, cunada ha u kariyo, waxyaabaha ciidanka ay u baahan yihiin ha u qabto. sababtoo nabi daa'uud wuxuu ahaa nin baryar, awood badan aan markaas ma lahayn awood badan uu ku hor istaagi karo dadkii ishee gaalada ahaa markaas. isagoo nabi daa'uud sidii iska qabanaya oo ciidanka sidii ugu dhex jira baa ciidankii gaalada waxay codsadeen inay muslimiinta la galaan mubaarasada marka iyagu waxaa u gelayay ninkii loo yaqaanay jaaluut walaalayaal waxaa lagu sheegaa inuu ahaa qof awood badan. waxaa la sheegaa inuu ahaa nin dhererkiisu uu yahay 3 mitir. waxaa la sheegaa markaas ciidankii meesha ku dagaalamaysa in laba jibaar uu ka dheeraa. waxaa la sheegaa walaalayaal agabkii uu ku dagaalamayay sida seeftiisii, warankiisii, wuxuu xirnaa koofiyadii, waxaasoo dhan in isku celcelis ay gaarayeen wax ka badan 10 kiilo. markaas wuxuu dhahay jaaluud baa wuxuu dhahay yaa maanta geesi ah oo muslimiinta ka mid ah oo igu soo bixi kara mubaarasadu waxa weeyaan inta dagaalka weyn uusan bilaabanin baa qof ka mid ah gaalada iyo qof muslimiinta ka mid ah isku soo baxayaan. qof baa marka la dilaya ka laga siinaya, sidaasuna dagaalka ku bilaabanaya. wuxuu dhahay marka yaa igu soo bixi kara maanta mubaarasa. muslimiintii oo dhan waa ay baqeen dhererkiisa markay arkeen, awoodiisa markay arkeen, agabka uu wato markay arkeen, tababarkiisa murqadiisa sida u yaalaan waa ay ka baqeen, gadaal ayay uga degeen. heer wuxuu gaareen in qaa'idkii muslimiinta uu ku dhaho war yaa ilaahay dartii u dagaalamaya, gaalkanna dilaya, gabadheedana aan siiyaa. weli wax u soo baxa ayaa la waayay. iyadoo sidaas xaaladdu ay tahay, muslimiintu wax walbaba ay ku cakiran yihiin, ayaa nabi daa'uud farta taagtay. wuxuu ku dhahay anigaa u baxaya. muslimiintii waa ay yaabeen, waxay dhaheen maanta hoog ayaa inoo sugnaaday, already dagaalku waan ku guuldareysanay. qaar baa aamina waxay dhaheen haddiiba annagii aan u bixi weynayo ninkani ka feero weyn isaga siduu ula dagaalamayaa jaaluut. laakiin meesha waxaa ka dhacay bilcagsi, waxaa ka dhacay wax qof walbaba uusan malaysanaynin. nabi daa'uud waxa uu dilay gaalkii jaaluut ahaa. wuxuu sidaas isagoo gaalkii jaaluut markuu dilay wuxuu hantiyay qulubtii reer banu israa'iil. wuxuu noqday qof ku weyn qalbiyooda, way jeclaadeen, waxay arkeen geesinimadiisa. ninkii shalay ahaa ari raaca dadka aanan ixtiraamaynin wuxuu aroosay gabadhii uu dhalay qaa'idka, wuxuuna ka mid noqday dadkii markaasi xukuumada ka mid ahaa. waxaa laga yaabaa walaalayaal maanta duruufooyin ku haystaahi inay kaa curyaamiyeen guulo badan oo aad gaari lahayd. waxaa suurtagal ah dadkii aad isku looga aheedeen, isku waqtiga aad aroosteen in maanta ilaahay caruur siiyey, laakiin adiga aadan weli waxba dhalin. waxaa suurtagal ah dadkii aad isku businesska bilowdeen ama beecsharada hal mar aad wada bilowdeen businesska, iyagu ilaahay maanta wax walba u kala furfuray, adiga aadan weli waxba aadan haysanin. ha walwalin, ha niyad jabin, ha isdhihin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ku hilmaamay. ilaahay subxaanahu wa tacaala arrintaada waxba kama bedeli doono, bal aamin ilaahay qorshihiisa. qorshaha ilaahay ayaa mar walbaba ka wanaagsan qorshaha inagu aynu damacsannahay. hanka allah subxaanahu wa tacaala inoo hayo ayaa ka wanaagsan hanka aynu damacsannahay. sidaas daraaddeed samirka badi, iimaanka badi walaal. waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo sheeko yar oo ku saabsan maroodi iyo dawaco. waxaa la sheegaa in hadda ka hor maroodi iyo dawaco ay saaxiibo ahaayeen, ay hal marna uur wada qaadeen. waxaa la sheegaa in maroodigu uu yahay in waqtiga uurka uu qaado ay dhan tahay muddo dhan laba sano. waqtiga uurka oo qaado ilaa waqtiga ka dhalay ay tahay muddo 2 sano ah, halka dawacaduna ay tahay 2 bilood. hal waqti ayay uur wada qaadeen. kadib 2 bilood kadib dawacadii waa ay dhashay, haddana uur kale ayay qaaday, waa ay dhashay, haddana uur kale ayay qaaday, waa ay dhashay. halka maroodigii uu uurkii weli ka lahaa. maalin maalmaha ka mid ah markii ay sanad ka soo wareegatay baa waxay isku arkeen wadadii dawacadii oo ay la socdaan xeen dhan oo dawacooyin ah ay hogaaminayso, iyo maroodigii oo weli uurki leh baa wada isaga soo horbaxay. waxay ku dhahday aawa cunugaagii. markaas wuxuu ku dhahay waa kana weli uurkii baan sidaa. markaas waxay ku dhahday suurtagal ma aha, sidee uur u sideysaa ilaa ay haddeertaan 2 sano ku dhowdahay waqtigii weli maadan dhalin. aniga ay gaarahayga fiiri, waxaan dhalay waxaan dhalay iyo waxay sii dhaleen generation after generation baa garbahayga socda. markaas wuxuu ku dhahay dhageyso,
waa sax adiga ilmo badan baad dhashay laakiin aniga wax aan caloosha ku sidaahay ma ahan dawaco ma ahan shay yariis ah la dhayalsan karo shay markii dhagax lagu tuuro ordaayo oo bini'aadanka ka cararayo ma ahan shay xayawaanadoo dhan ay ka heebaystaan ma ahan waxaan aniga caloosha ku sidaahay waa xayawaan aad u weyn waa xayawaanadoo dhan ay ka heebaystaan waa xayawaan markuu wadada goonaayo baabuurta laga istaajiyo waa xayawaan markay dadka arkaan ay soo xasuusanayaan allihii abuuray waxaa suurtagal ah walaalayaal in aad markhaati ka soo noqotay dad horumar gaaray dad kaa horguulaystay facaagii oo horumar gaarayo dadkii aad isku waqtiga aheedeen oo guursanayo oo noloshii u kala furmanayso laakiin haniyad jabin waxa aad caloosha ku sidaahi ma ahan dawaco ma ahan wax yariis allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kula damacsan yahay inuu ku siiyo wax weyn wax badanna u noqon doona mujtamaca markaas nool tooshna u noqon doona mujtamaca gadaashaa imaan doonta haddaba dhib walba oo maanta aad ku dhex jirto u dulqaado u sabar ha isdhiibin ha niyad jabin bal ilaahay tala saaro maalin maalmaha ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa wax badan ka bedeli doona hada wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu